Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal kale online academy waad ku baran doontaan cilmiga ICT-ga iyo accountiga. Waxaynu bilaabi doonaa inaynu sameyno website-kan halkiina ka muuqda. Project-keena ku noqon doona. Waxaan soo furan doonaa meeshan ku qor lahayn oo ah Sublime-kan. Sublime-kan waan save garaysan doonaa. Waxaynu ku bixin doonaa magaca doontada la baxaysa. Si aad u save garayso file baad soo furan doontaa. Save as. kadibna halkaas aad ku qori doontaa magaca doonayso. Imika waxay ku qoran tusaale ahaan waxaan ku qori doonaa kabe tusaale ahaan oo kale .html kadibna save ayaan oran doonaa. kadibna waxaan ku bilaabi doonaa tag-geena ugu horeeya oo ah inaan ku bilowno html saasaynu ku qori doonaa inoo dhamaystiraya. kadibna waxaan ka doonaa ciwaanka tusaale ahaan kabe online academy. Okay, waxaan samaysan doonaa kale waxaan furan doonaa div koowaad aan ka dhigan doono class u samayn doono. class-keena magaciisa wuxuu noqon doonaa container. waxaa kale aan samayn doonaa div labaad oo inaguna ka dhigi doona key head-ka aan ku bixin doonaa div. kadibna iyadana waxaan samayn doonaa class waxaan ka dhigan doonaa class-keeda head. halka dhexdiisa hadda waxaan ku qoran doonaa website-keena. markaan ku noqono website-keena waxa ugu sareeya color yar madow ku jiro blue iyo madow isku dhex jira. waxaana ku dhex qoran individual iyo group. intaasaynu samayn doonaa. si aan intaa u sameyno marka hore waxaan qoran doonaa oo ah anchor oo ah link ayaan sameynaa. kadibna halka dhexda waxaan ku qoran doonaa tusaale ahaan oo kale individual ku labaadna furan doonaa isagana anchor kale oo ah link. kadibna iyadana hashtag hadhow tolaha hashtag ayaan ku qornaa. waxaan ku samayn doonaa link ayaan ugu xidhi doonaa tusaale ahaan oo kale meel kale link ugu xidhaso kaana waxaan ka dhigi doonaa business oo kale business. okay, intaa markaan sameyno balan save gareyno waxay noo soo baxeen eegi doonaa. markaan furano okay waxa halka inoo qoran waa individual iyo business. xaggan sarena waxay noo qoran kabe online academy oo ah title-ka ciwaankeena. si hadaba inuu intaan u qurxino inuu uga dhigno sidan oo kale website-keena oo kale. marka hore waxaan sameynaynaa inuu CSS u sameyno wey. CSS-ka waxaa lagu qoraa imika saddex qaab loo qoraa. mid inaad ku dhex qorto oo loo yaqaano inline. midka labaadna waxa weeye inaad halkan ku dhex qorto oo halkan title-ka hoostiisa tusaale head-ka inaad ku dhex qorto oo loo yaqaano internal. iyo mid kale oo saddexaad oo jira oo inaad page cusub u sameyso oo aad ku qorto external isaga. marka inagu waxaan isticmaali doonaa kan internalka. okay, halkaa waxaan samayn doonaa markaan soo dhamaystirno halkaa waxaan ku samayn doonaa style oo ah inaan u sameyno CSS-kii. kadibna halkaa ku qorno style. kadibna halkaa dhexe ayaan soo geli doonaa centerka. kadibna waxaan ku qori doonaa waxaan u yeeri doonaa container-keeni oo aynu noqon doono container. okay, waxaan ka dhigi doonaa curly braces baynu furi doonaa. waxaan ka dhigi doonaa margin xagga sare margin. waxaan u samayn doonaa 0 pixel. waxaa kale aan samayn doonaa padding oo isagana aynu 0 ka dhigno padding. okay, intaa markaan container-ka sameyno waxaa kale aan sameynaynaa inaan u yeerno head-keeni. waxaan doonaa head-kii baynu yeernaa. kadibna waxaan samayn doonaa background color baynu samayn doonaa background color-kiisa waxaan ka dhigi doonaa background color waxaan ka dhigi doonaa waxaan oran doonaa #1c maybe 2c 002c in background ka dhiganaa. width-kana waxaan ka dhiganaa width-kana 100%. waxaa kale aan samayn doonaa line height oo aynu ka dhigi doonaa 40 pixel.
40 pixel halkaan isku saxno. Waxaa kaloo mudan doontaa inaynu sameyno isna headka eediisa oo ah head aynu sameyno. waxaynu sameyn doonaa tusaale waxaynu oranaa text decoration waxaynu ka dhigi doonaa none. tusaalahan colorkiisa waxaynu ka dhigi doonaa white farta nooca noqonayso intaaba la soo afkareyno waxay iska bedelayaan eegno marka. Okay, wuxuu sameeyey farta waxay nooga dhigay cadaan background-kana waa madowga. waxaynu weyneynaa fartana waxaynu ka dhiganaa waxaynu oranaysaa font size tusaale waxaynu ka dhiganaa 20 pixel kadibna save gareyno. waxaynu eegi doonaa afartan waa inoo waay. Okay, waxaa kaloo sameynaa waxaynu oranaa padding 10 pixel to 20 to 15 pixel. eegana okay inoo kala turkiyay isagana 10 to 15 pixel. Okay, intaa waxaynu kusoo koobi doonaa casharkeeni insha Allah. waxaan wadi doonaa website-keena inagoo intaan qaybtan gudahana sii dhigi doona. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.